xabaalo sida la sheego oo kale ay ku aasan yihiin dad hore ama hore ilaa kuma ku sano sidaan markaan warbixinteeda qiimeeyno oo deegaanka u nimid xabaalaha saadada waxay magaalada kaga beegeen dhinaca waqooyiga waana xabaalo qadiimi weeye oo ay ku aasan yihiin dhammaan dadkii hore oo dhan ee magaalada soo xukumiyay dhintay ismaaniyiinta hadaan khaldanayn ismaaniyiinta hadday tahay wixii ka dhintay ingiriiska hadday tahay iyo dhammaan wixii kale ee soo maray boqortooyinka marka kulley waxaa taariikhda inooga warbixinaya iyo xabaalaha saadada way hadda taaganahay oday ka mid ah berberidii hore oo ka mid ahaa dadkii hore waay arag ahay magaalada ku soo joogay adeero magacaaga marka ugu badan xasan axmed baa ريفل كم قاعد كل ريفل بروي كرنا مجا حسن أحمد ريفل بروي كرنا كل مجا عاصر ريفل برا وحين دوينا هذا اللي رابحنا قصيصة وبحين مركز قاسي قصة أبسن أجل حوالها وحنا جوه مع وحي عاد مقشي يوحى دارك وحي عاد مقلة ومقل فوق كل سجال بقول كل سجال كنت طباب بقول يوحي كهري كنت طباب بقول طبانكي اسمانية تقول ليلا تكري أيه لها دبار ما ليلا بوتا مدو هو استيلا دبار تبيه وبي مدى مقالة مركي وبيجي وليه هالكيالو دي مركي بيسكب بدوان بو هيا كلها تقالة هيا كلها تقالة تقالة كنت بابا كنتي عمر جبريل كان ليلا يسمو سام وحن بيها وحن بجيحة وحن قرينا ما هكذا عوامو صح دونيدي ugu horeysay halkan soo martay badda soo martay balaaga soo heeriyay ayay ilaahay badda maanta way ku daray dadku ka yaab صح dad dhaadheerooyin faraacidi ka soo hadheeyay way ku jireen maslahan ku asal xabaalahan faraaciintii ka timi Masar iyo meesha halkii iyo dagaal soo qaaday marka dad meesha yaalo yuhuudiyo dadka la dagaalamay nagarin xabashi mara ayaa maraya صح taariikhdaasi waa taariikh fog bay waxa ka dambeysay 1920 ingiriiska haystay marka 1920 ugu dambeeyay faraaciinta iyo Turkiga ugu dambeeyay Turkiga Ismaaciil 1920 albaarkada shadeere u jeed geed baaba'ay oo imka guntiisii u sii castahay oo tibiraba ku wada niman koofi loo leeyahay oo ingiriiska u shaqeeyo Soomaaliya ayaa la joogay waxay ku sidee boqol labaatan asaas loo horeeyay ingiriiska halkaas qabla صح way ka magan magaalooyinka weyn waddanka xabaashi boodiri meeshan ayaa lagu sheegaa ma garanaysaa oo isagaa yidhi hay sheegina meesha lagu aaso isagaa yidhi hay sheegina xabaalaha saadada markaa qofka ma qabin waa laga xaalaan fi horo meesha lagu aaso marka xabaalahan ba ka mid xabaalaha saadada ay ku jiraan taariikh soo ay كنت تتكلم عن التاريخ كنت تقول لي واه مساجد تركيا فيه دبار وسيدنا محتوي تركيا iyo qaar kale badan waan taariikhda ka soo gaaray xad ka maqashay xad haysa xad soo joogay intii badeem ku sii dhigayeen garay oo arkana way sii dhigayaan asaartu oo marna gib masaajidka tugniga waa kaas waa lagu tukaday waan arkana isaga waxa jira shaqo ismaami oo ka sokeeyo tugniga ka sokeeyo oo ninka timo weyn ay ku jirto shaqo ismaamahaasi ciid wax looga keenay tugriya tooriya lagu ciid taalaba shaqo ismaami صح tooriya sidii صح ليرتو نوع ولا مو كبحنا صح بالبركو صح مع وزرته هيك بحيس صح هو عيد عجايب هاي تاريخ هاسي التاريخ التوقيت هيدو واسباني تيو تاريخ ما عصارهان halkaas shaqeeyay maxay waxay meelaha ay ka shaqeeyay xawaj walaal meelaha ku horeeya tuqriba madaxtooyada halkaas ka shaqeeyay مساجد تقريبا كل دكتور يشارك
madaxtooyaduna waxay halkan soke ee tukra ka yeesmaysa meelihii waxaa jirta meelo xerya u ahaayo ciidamadoodu yaallin oo kusii marinaya meelo imika dhulka ku aasan oo ciidankoodii oo ciidankoodii sax oo dhulka ku aasan boo sabad guudka saaran sax sabad ah nuurad ka samaysan iyo sokor oo meel laga galalay oo imika halaaggan xitaa dadku aanu guri ka dhigan ama dhib guudkeeda la dhisan oo waxbaba way jirta oo dhulka ka samaysan halkaan mari taasna oo ku haya warsi maray dowladdii siyaad barre iyo berbere maxay ka qabatay dowladdii siyaad barre iyo berbere maxaa kala dhex maray waxay ka qabatay markii hore waxbay ka qabatay sax markii dambe ayay reefas ugu baxday sax ee wax badan bay ka qabatay oo dekeda weyn intii dowladda siyaad barre la sameeyey oodhi ma iminka hangarradan ay soo dhaafnay intii siyaad barre ayaa la sameeyey xeryaha dowladnimadooda fooqaalaha ka muuqdo fooqaalaha ka muuqdo dhakhtarka xooggaa la oran jiro dowladda siyaad barre ayaa la sameeyey fooqa shisho weeyaan labada shisho weeyaan qabyada dowladda siyaad barre sax ayaa kaana la sameeyey ruushkii baa sameeyey sax marka ilaa adigu 77 ilaa 76 tusaad ku xidhay waxbuu ku taray arlaayiga laakiinse wixii ka dambeeyey 77 markay ahayd 80 ayaa qabyaaladii iyo barnaamijkiyo dadkii kala qaybsan oo majeertee baxan SSDF way soo dagaalameen oo majeerteen hoodaa loo shiday oo isaa ka dambeeyey markaasi waa aragtay ay leeyihiin